iyo heed ahelo iyo cayaar sameeya haybad iyo hadhaale baanu hindisnaa buraanbur iyo heed ahelo iyo cayaar waa nabad dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta aynu soo dalxiisnaa halayo idaadiya waa mar kale dhegeystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta iyo qaybtii lixaad ee taariikhda cumar ow jaamac caynab oo barnaamijka fanka iyo suugaanta aan ku soo gudbinaynay suugaanta cumar ow jaamac caynab intiina dhegeystayaal la socotay barnaamijkii kan ka horreeyay waxaan ku soo gudbinay suugaan badan oo uu leeyahay cumar ow jaamac caynab oo isugu jirta heeso wadani ah iyo kuwa jacayla toddobaadkana halka ayaanu kasii aanba qaadi doonaaye waa kan cumar ow jaamac caynab oo ka hadlaya dhaliilaha iyo gondololaha fanku maanta uu leeyahay iyo sida loo horumarin karo waxaan isleeyahay nin dee horta wax waliba in lasii horumariyo way dee maogtahay mudan tahay marka fanku waxaan isleeyahay dee meelaha uu imika aada uga leexsanya waxa weeye fanku berigii hore meel buu kasoo bixi jiray oo dee wuu habaysnaa oo dowladda gacanta ku haysay imika waxaa jira firqado badan oo dee dowladana gacan ku hayno oo ma garanaysaa dee aada ugu jira hawada media ugu jira marka dee wixii aan lasoo bislaynin ma macaanadaan kaba soo qaad ereyadoo kale ereyadu dee tala bixin bay u baahan yihin oo shaandhayn bay u baahan yihiin oo waxay u baahan yihiin khibrad bay u baahan yihiin halkaa sifayntii iyo ablaablayntii way ka maqan tahay marka waxaa dee iman kara meesha in lagu heeso waxyaalo badan oo qalada in lagu heeso ereyo badan oo qalada ama heestuba dee si u socoto aan aada loo fahmi karin ama ereyadiiba dee aada u liitaan marmarkaas qaafiyadiiba ay si qaldan ay tahay ama sheekada heestuba dee wax iska hor imanaya ay tahay marka halkaa waxaad ka garanaysaa in u baahan tahay in la tayeeyo ereyada dadkii dabcan ereyada sameynayay way soo bateen marka dee in la kala reebo oo wixii soconayana dee la yidhaahdo ayay u baahanaanah laakiin dee marka arrinta faray ka baxday arrintu runtii say ugu muuqato intii imkaad fanka ku dhex jirtay maxaa kugu yaabadnaa wallahi waxyaalo badan oo dee ayaad arkaysaa markaad istuudiyaasha tagto xagga fanka dee marka loo eego layaabkiisa nin baa gabadh soo kaxeeyey markaasuu wuxuu doonayay inuu ay dee hees wada heesaan marka studio yimido gabadhu dee gabadh heesi kartaa ma aha marka wuxuunbuu doonaya gabadhme isagaaba ku riixayo le mataqaana anaga fanaanad kaa dhigayo kusoo saarayo magaras waxankaas marka stuudihii markuu keenay buu dee ninkii musishanka alaxankii dee ka qabanaya codkii teembadii lama socoto ya cod ma jira meeshii dabeedna waxbay forteen bay iska gelaysa marka wuxuu doonay inuu computerka uga hagaajiyo in badan markaa deedna show dhowr jeer buu ninka kusoo noqdo reese ma dhamaysayo weli waan wadaa ma dhamayso deetan markaasuu maandambe ku yidhi oo dahaawan dhameey bro taas eego kii de gabadha keen ma arkay inuu codkii zero yahay meesha xabid waxaan dhegeysan karaa inaan ahay isku niyoma naga hagaajis markaasuu yidhi dee intii aakhirtaagayga waan hagaajiyay ama cod baan maaniga haysa marka baalkan yar de computerka lagu heesaya mushkiladiisa ayuu leeyahay ma garanaysaa dawaa waxaa la hagaajinayo de wax la dul saarayo marka waxyaalo badan oo dee la yaabto waad arkaysaa mid baad arkaysaa odhanaya abwaan baanahay nin baa hasan soo saaraynay buu ayuu sheegayay marka anigu marka heesta aan sameeyey la duubayo abwaankan ma jecli de abwaan ma jecli ya cumar ow jaamacayna baan dee ka jeclahay abwaankan garanaysaa maaha abwaanimadu wax qofku samaysto isagu dee isku magacaabo maaha marka waxuu sheegay deedna cidda samaysay buu sheegayo marka waa ereyadii cumar ow jaamacayna iyo laxankii muusigii maxamed karaama waa codkii fatxi afiska intaa markuu yidhi
ayuu yidhi iyo hambalyadii abwaan sawaaxil way dadka waxaa ku uri aniyo wada masxaba ya wala cumarna xitaa ku qorini wada masxo qoraalkunbaa lagu qoraya sax ya way markaa ma uma baahnin wax lagu record garayo waa isan ku dhigay adeer inuu dama doonayo hees abwaankan aad sheeganayso xagu ka soo galay anigii lahaa baa diidsan ba in lagu qabto abwaanka markaa dee abwaanku magac qofku la baxa maahe waa waxyaalo kale uu ku sifoobo waxyaalo ku sifoobo waa waxyaalo kale marka de waxyaalo badanoo magaranaysa qaldan runtii waad arkaysaa fanka marka fankii wuxuu u baahan yahay in la tayeeyo marka dadku waxay ku odhanayaan war de fankan imaku de fan ma iyo heesaan imaku heesa maaha dee dhadhana ma laha de marka dhinaca waagto horta waxyaalo badan xarkaya inaan dee saxarsanayn marka dadku lakin waxaanu fahamsanayn fanku inuu baaba'ayo dee dumistii uu dumay aanu ka soo kaban oo u baahan yahay dee in dib loo dhiso waa hagaag waxaa jirta in hees dalxiis la yidhaahdo oo sida magacu ka muuqata ka turjumaysa in deegaanka somalilan quruxdiisa nimco yaasiin iyo wax wada qaadaa nuur daalacay dalxiis waxaa weliba waqtiyada ay soo baxday aada iyagana loo maqnay heeso cusub oo fankan dambe ah oo iyaguna deegaanka somalilan iyaguna si lamid ah ammaanaya gobol gobol ama deegaanada quruxda lagu tilmaamay somalilan sifeynaya heestaasi sidee bay kugu dhalatay heestaasi waxay ahayd 18 May ama 18 May aan iraahdo 2012 sidaad ogtahayba sanad walba waxaa soo saa jiray hees munaasabada 18 May ama laba heesood ama saddex kulba intaan ka gaadhsiino marka heestaas waxay ka mid ahayd heesaha markaa sanad guurada 2012 kusoo beegantay ayay ahayd marka waxaan isleeyahay heestaa iyo heestii ka horreysay nimca dareen oo iyana deegaanka somaliland wada maraysay isku waxay ahayd labaduba gobolada somaliland bay marayeen waxaana filayaa inay ahayd bilowgii heesaha noocaas ah marka heeso badan oo kale oo dadka la tiriyeen baa jiray oo iyaguna halkaa iyagoo ka duulayay uun halkaas ayaa jiray marka dalxiis waana hees jacayla waana hees wadaniya labadaba marka waxaan ugu tagay in maaragtay sidii masalan nin laba iscalmaday oo dalkii ku dalxiisay oo isdalxiisiinaya oo dibadda ka yimid miya oo dibadda ka yimid ama haade kulley kaale soo dalxiis ama dalkaba dee kuwa jooga laftooda dee dalka ma wada yaqaanaan maxaa ka mid ahayd kaale soo dalxiisne marka waxaa ka mid ahayd ducaqaba hargeysiyo dacalada wajaaliyo almistooga loo maro deeble iyo boorame iyo diliya laalays aynu soo dalxiisnay kaale dalka hooyo soo baro heestaasi marka waxa wada qaada nimco yaasiin iyo nuur daalayac baa wada qaada marka runtii waxbaanu ka xusi doonaa heestanu saari doonaa kulli sida ubaxa dayreen indhaha ku doogsada degan aragtidaade duca qabo hargeysiyo dacalada wajaaliyo almistowga loo maro duca qabo hargeysiyo dacalada wajaaliyo almistowga loo maro deblaya boorame iyo diliyo laalays deblaya
boorame iyo diliyo laalays iyo diliyo laalays aynu soo dalxiisne dalka kaalay soo maro kaalay kaalay nimcay kaalay soo maro aynu soo dalxiisne dalka kaalay soo maro kaalay kaalay dalka hooya soo maro بدلا